نون قلم من وحي القرآن نون يكتب لي شعرا موزون نون macadka magaalada jowhar nin yaqaana ma moogeen ninkii moog ha maqlee mudana la yidhaah magaciisa ha raagay bulshadu way ka maqsuuday maamulkiisa wanaagsan iyo macallimiinta aadka u tayaysan iyo manhajkay dhigayaan maskaxda kiinii ku qaata ugu wuu mahdiyaa macadka magaalada jowhar macadka magaalada jowhar waa musbaaxdii tacliinto meel fog ku ifinaysa mar haddaad canugaaga dhex geyso isagaaba macaansan oo macnuhu fahmaya misna meel kaleeta ma aado maadig iyo diini midka aad muhanayso mowqifkaagu ahaa waa lagu meerinayaayo marxab iyo guddoon maxadka magaalada jowhar madaarista wax lagugu barayo waa madaaris ay si maangala uga soo wada shaqeeyeen macallimiin aqoonta maadig iyo diinta master degreega ka haysta oo dhammaan takhasus gaara u leh qaabka ugu wanaagsan ee gudbinta casharada macadka gelinka hore waxaa lagugu barayaa ubadkaaga qur-aanka kariimka iyo tarbiyada wanaagsan si ubadkaagu uu noqdo ubad akhlaaq wanaagsan oo ku dayasho mudan axsan macad fii madiinatu jowhar gelinka dambe ardayda waxaa lagugu barayaa cilmiga maadiga ah ardayda wax ku baranaysa macadka magaalada jowhar waxaa xilliga qadada uu qado ku leeyahay macadka islamarkaana la barayo tarbiyada si loo wanaajiyo akhlaaqdiisa iyo adaabtiisa macadka waxa uu dhalinyarada afarta xaafadood ugu talagalay gaari u gaar ah in lagu soo daabulo laguna geeyo goobta waxbarashada marka ay dhammaystaana dib loogu celinayo xaafadahooda waa afarta xaafadood ee magaalada jowhar iyo deegaanada kale ee u dhow sida kongo iyo libiga waxbarashada macadku waxay bilaabanaysaa maalin kasta 8 subaxnimo waxaana laga soo rawaxayaa 5 iyo 30 daqiiqo ama 12 saac iyo barka maalmaha khamiista iyo jimcaha waxaa jira part time loogu talagalay ardayda kale la mid ah ayaana qaabka waxbarashadu ay ku soconaysaa sidoo kale maalmaha khamiista iyo jimcaha waxaa kale oo jira dadka daada ah ee sida aabbayaasha iyo hooyooyinka in la siinayo waxbarasho u gaar ah maxadkan waxa uu si gaar ah ugu talagalay ardayda dhigata dugsiyada sare in galbihii uu u hayo fursad waxbarasho kana saacidayo maadooyinka fiisigiska chemistryga biologyga iyo weliba xisaabta haddaba horu gaar oo yaan lagaa buuxin macadka sida aadka u tayaysan ee aad ka helayso adiga iyo ubadkaaga waxbarasho dhammaystiran maxadkan waxa uu ku yaalaa boostejada baryare dhanka qoraxsin ama galbeed wixii faahfaahin dheer waxaad kala xiriiri kartaa teleefanada kale ah eberle xal 9 39 93 ama eberle xal 5 86 28 44 ama eberle xal 5 16 57 71 ama eberle xal 5 96 54 84 maamulaha macadka jowhar waa Cumar Cali Maxamed ustaad Cumar horu gaar oo hambogaan macadka magaalada jowhar نون قلم من وحي القرآن